iyadoo bilooyinkii u dambeeyay degmada Walaweyn ee xarunta martisoorka gobolka Shabeellaha Hoose laga dareemayay dhaqdhaqaaqa iyo horumar dhinaca ciyaaraha ayaa waxaa munaasabad xariga looga jiray xafiiska dhalinyarada iyo ciyaaraha degmada Walaweyn ay ka dhacday gudaha degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. gudoomiyaha hanaduqa degmada Walaweyn Maxamed Sido Cabdiraxmaan iyo isku duwaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee degmada Walaweyn Cabdifataax Sheekh Abuukar ayaa si rasmi ah xariga uga wada jiray xafiiska cusub ee dhalinyarada iyo ciyaaraha degmada Walaweyn ee xarunta martisoorka gobolka Shabeellaha Hoose. munaasabad kooban oo lagu daahfurayay xafiiskan cusub ee lagu soo kordhiyay degmada Walaweyn ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan gudiyada isboortiska iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. xafiiskan cusub oo qayb ka noqonaya horumarka isboortiska degmada Walaweyn ayaa waxaa degmada ka hirgeliyay isku duwaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee degmada Walaweyn iyo gudiyada isboortiska degmada ka jira. waxaana ugu horeyn goobtaasi ka hadlay isku duwaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee degmada Walaweyn, gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta, gudoomiyaha Olombikada, macalinka xulka kubadda cagta degmada Walaweyn iyo mas'uuliyiin kale. waxayna ugu horeyn u mahadceliyeen gudoomiyaha degmada ka soo qaybgalkiisa, waxayna baaq u direen mas'uuliyiinta ka soo jeeda degmada Walaweyn inay soo garab istaagaan dhalinyarada isboortiska degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose. mayba farxad gaaga in xafiiska maamulka dhalinyarada ciyaaraha ee degmada Walaweyn uu furno oo sunan ku qayb galo gudoomiyahana mudane Maxamed Sido Cabdiraxmaan. mayba degmada Walaweyn oo gaab ku hirgelinay xafiiskii dhalinyarada isboortka degmada Walaweyn. baahi badan iyo jirto maamulkan si shaqeeyay xafiis ilaha in gaag ma hirgelinay in uu xafiis degmada ku furno maadaama isku duwii dhalinyarada ciyaaraha Koonfur Galbeed iyo si in is xilqaami in degmada maamul sport mid ka shaqeeyay hal in uu furno gaaga arwaytaan ana isku duwa ah wasaaradda taakula ku haysana walba ku haysana Koonfur Galbeed taakula ku haysana ma iska dayay in degmadii uu xafiis ku furno ma la soo baahan yahay xildhibaanada federaalka xildhibaanada Koonfur Galbeed ma la soo baahan yahay si mudane Maxamed Sido Cabdiraxmaan oo kale isna garab istaag soo ku halna jaabkii hadii uu ka fagaray kornada afkiin albaabida ninka budidan isboortiskan may fadayna in naadiyalkii hore sida GMC sida xidigaha gudoomiyaha arwaytaan ma hayay laacibka xidigaha waa ciyaartooy ah ku warqabtaan gaagana arwaytaan in xafiiska sunan qayb galo farxada nin eetum dhamaantaano hadii uu baax isboortiga ma waleena qurbo joog sina ma soo fadawaa sida garab istaag nin soo biidaan waxyaabo badan oo baahi badan oo isboortiga ma waleena shaqeeyo maamulka baahi badan iska shaqeeyay ma soo ku fadaane in gacan istaag garab gabad naqabataan maanta waxa la furay xafiiskii isboortiga ciyaaraha iyo la furay aad iyo aad ayaan ka faraxsana boqolkiiba ka faraxsana way aad iyo aad in jeclaa in oo dadka kor jiro na aawano gacan nigsiyo oo walwalbani la qabado iyo aan baahna gudoomiyaha hashe boqolkiiba uu ku haysana boqolkiiba ku haysana gacan qabasho geeka ma sha Allah isku duwaha ee Koonfur Galbeed Cabdifataax Sheekh Abuukar dadaal weyn ahay aad iyo aad dadaal haya waa daam xafiiskan geek uu ka kulmaan oo soo qaabiye mid kale oo shan dharka xulka degmada Walaweyn aad iyo aad markii siinayso magacaaba degmada aad iyo aad isbedeli oo dhanka sportiska ah mid kale wariyaha qaaska ee Cabdiqani siis qoyn degmada waxa waa samada siyaati aad iyo aad u sin mahadsanyiin mid kale gudoomiyaha degmada Walaweyn hil iyo hoob garabkan Suuriin wala shay qorma waa haween maalaan injiida sportiskaana garabkan Suuriin dhanka amniga dhanka koobka dhanka dhaqaalaha wal kasta si in hal saarin gudoomiyaha aad iyo aad ka mahadsan gudoomiyaha waxaan u sheegaa dadka qurbaha ku nool annaga waxaan nahay rag isku duuban oo israacsan rabnana degmada inaan horumarkeeda ka talino madaxdeeni iyo isboortiga degmada Maxamed Sido Cabdiraxmaan ugu weyn yahay dhammaan raaliga ka yihiin inaan horumar arag aan gaarno insha Allah waxa idin ka sugeynaa kaysa rag maqlaayo October dhamaantiin Yaxya Cabdullaahi waxaan kala reebaynaa dhamaantiin anaga waxaan idin kaga baahnay garab istaag maxay la degmada waa naga dhaxaysaa maadaama uu gudoomiyaha degmada Walaweyn oo shirkaan nooga soo qayb galay xafiiskan noo furay waxaan guul leenahay xafiiskan degmada laga furay marka waxaan rabnaa ciyaartooyda degmada Walaweyn maadaama mar hore xafiis lahayn waxaan rabnaa in qab walbo koox walbo gudoomiye walbo inuu ku soo xirmo xafiiska dhalinyarada isboortiga degmada Walaweyn idnimi maqan eelnimi qodan shalay way waa malahayni xafiis ilinka xiriirow ama ilinka seedaw
geega way haysanaa xafiis oo una nin ku amal isniinka aado qeyr Allah hasiyo markii una dacwad iyo wax iska qabsan way soo jirnay gudoomiyaha xafiisii iyo soo jirnay waa nin oo mar walba horumarka isboortiga intaag ama dhalinyarada sida hadda boorka suuq muuqda aragoo haytaan macna gudoomiyaha duqa magaalada Walaweyn Maxamed Siido Abdiraxmaan horumarka iyo sinaanta dhalinyarada degmada Walaweyn ma mid uslig haysiyo haayo waa dad oo waa markaas astaan usluku aragay in uu soo bulshada u hoggaansiyo oo mar walba oo macna garab taagayo marka waa suuq baahanaa sida macnaha gudoomiyaha macna oo nin garab taagan iyo dadka qurba joogtada in asaasineen garab roogsidaan ugu dambeyntiina waxaa goobtaasi ka hadlay gudoomiyaha ahna duqa degmada Walaweyn Maxamed Siido Abdiraxmaan wuxuuna sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu ka soo qayb galo munaasabadan dhinaca kale gudoomiyaha ayaa baaq u diray qurba joogta iyo mas'uuliyiinta degmada Walaweyn isagoo ka codsaday in la garab istaago dhalinyarada isboortiska degmada Walaweyn ee xarunta martisoorka gobolka Shabeellaha Hoose ma aad iyo aad faraxsanaa marka hore furitaanka macna meel loo xafiiska oo geeg furan guddiga isboortiska ee degmada Walaweyn oo inka horooyo isu duwaha wasaaradda dhalinyarada isboortiska ee koonfur galbeed ee degmada Walaweyn mudan Cabdifataax Sheekh Abuukar oo inka weyn oo ninka hogaamiyo oo xafiiskan iyo abaabulkan iyo horumarkan iyo waxyaabaha isin arwaytan qofka hormuudka laga usoo ma rabay inaan la hadalo lama qaybood iyo qayb saddexaad oo dawladda ah labada qaybood aan la hadalo ma waa koow dadka aan isku jeedaan degmada Walaweyn ee xildhibaanada wasiirada mas'uuliyiinta kale dhammaan ma aysan codsadaan in isboortiska degmada Walaweyn soo garab istaagtaan dadka dawladda dhexe oo ku tirsan ma aysan codsadaan in bil walba $100 qof walba soo jar degmada Walaweyn walna adin walna makin nimaaso walna mugo maalos makin ziyada saddex isboortiska kaalmay kuwa koonfur galbeed isin ma aysan codsadaan in $50 soo jartaan isboortiska degmada Walaweyn afsho ani ka hadalo aygeega ma aysan codsadaan bar baahida sinin qabad doontaan ina geega ahaato markii aad kooyt in degmadii la iska dhawaayo in sacabto ma in aad nagato iyo rabne lamaad ay la hadlaan dhalinyaradii isboortiska iyo hore ee degmada Walaweyn runtii isboortiska degmada Walaweyn had sida maalmahan oo dhaagaani khilaafa ku dhex jira iyo dhaagaani wal khilaaf la ilaa abuur ma jira isboortiska isgal koran unu baab roogneed dhalinyarada isboortiska hore ee degmada Walaweyn ee dhalinyarada cusub oo hadda soo been oo in aad inta ku leeyahay isboortiska dhamaantii ma soo codsadaan isgarab istaag oo sax ah qoonda oo wiliba in soo biidaan gruubyo ka jirtaan meel walba ka jirtaan gruub walba in billi isboortiska wala soo kaalmeeyo $1 ta soo dhiibtaan macna bees badan nagadaas mid saddexaad inta ay baaq ku diraane wasaaradda dhalinyarada isboortiska dawlad goboleed koonfur galbeed oo in horooy wasiirka ku xigeenka agaasimaha guud dhamaantii ma soo codsadaan degmada Walaweyn isboortiska sheeruntii aad iyo dhisanya laakiin sidoo arag waan macna hagrado haytaan mayni hagrado haytaan hatta tartamada oo ad baydhaba geela tartan la qabada degmada Walaweyn mu qayb galna xulkii gobolka Liinsuu baa runtii aad iyo macna lunku wax simi inkastoo qof iyo laba oo deegaanka oo isku jeedin ka jiraan laakiin degmadii toos ma lunku qayb gelin marka ma soo codsadaan in arintaas taw ina fiir gaar ah weel lataan isboortiska degmada Walaweyn dhisanya agaasimi oo maalas kan qofkii wakiilkiisa ahay degmada macna waako macna oo isduwaha ahay rooga aad iyo aadan soo dhawaayaan furitaanka geega xafiiska oo cusub oo degmada Liinfuri aad iyo isin in looga in ka arag haytaan marka ma soo baahina isgarab istaag oo joogta ay soo baahina oo dhinacaas isboortiska wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Cabdi Qani Maxamed Xasan raadiyaha telefishinka dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya degmada Walaweyn ee xarunta martisoorka gobolka Shabeellaha Hoose